mudane madaxweyne marka ugu horeysa waxaan kaaga mahad celinayaa sidaad had iyo jeer uga nugushahay ciidanka booliiska iyo guud ahaan ciidamada qalabka sida oo ah kuwa qaranka Soomaaliland iyo bulshada reer Soomaalilandba ay ku fadhiyaan ee ilaaliya nabadgelyadooda mudane madaxweyne ciidanka booliisku wuxuu hariye habeen heegan u yahay sugidda nabadgelyada qaranka iyo ilaalinta bulshada reer Soomaaliland sidoo kale waxaa mas'uuliyadda ciidanka booliiska ka mid ah inay si degdeg ah ugu gurmadaan marka ay yimaadaan masiibooyinka dabiiciga ah sida duufaanada dabka iyo daadadka iyo wixii la mid ah mudane madaxweyne waxaa xusid mudan in 6 bisha Afraad 2016 abaaro 6 maqribnimo waxaa daadad ku soo jabeen meherado ku yaala degmada Dila ee gobolka Awdal waxaa si geesinimo leh ugu gurmaday samarkaada naftooda u furay inay 7 qof oo isugu jira carruur iyo dad waaweyn ka badbaadiyaan sarkaalka iyo sarkaal xigeenka hawshaas markii ugu horeysay mudane madaxweyne waxa galay sarkaal xigeenka oo ninka ay makaatiisay xidiglaha naftiisu u huray carruurtu badbaadiyay geed buu saaray isagoo guriga kii ugu dambeeyay markuu saaru geedkii saaray ayaa isagii daad ku dhuftay isagii baa khatar galay basi wanaag waxa wax Ilaahay looga mahad celiyaa uu badbaaday xidigluhu oo taliixeen saldhiga Dilana uu soo gurmado markii dambe la daad gureeyay mudane madaxweyne waxa ciidanka booliiska sharaf weyn iyo qiimeyn u ah inaan ku hor keeno sarkaalka iyo sarkaal xigeenka hawshaasi badbaadinta ku guuleysay isla markaana abaalmarin siiso taasoo farxad weyn iyo dhiirigelin u ah ciidanka booliiska Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane madaxweyne ciidanka booliisku wuxuu muddooyinka dambe galay hawlgallo culus oo ku guuleysay kuwaas oo kala ahaa kooxdii hubaysnayd ee gashay goobta Sabawaraag number 29 ee diiwaangelinta ee degmada Luqay sidoo kale kooxdii burcad ahayd ee hubaysnayd ee weerartay ceel garde isla markaana koodii bishii saddexaad dishay Allah u naxariistee eega sarkaal gaashaan Cabdirasaaq Yuusuf Maxamuud oo ah taliyihii qaybta booliiska ee gobolka Saaxil waxaan madaxweyne aad iyo aad kaaga mahad celinayaa arrintaas kuwa ciidanka laftiisu mudane madaxweyne waxay mudan yihiin abaalmarin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ilaahay baa mahadle madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland saaka wuxuu halkan hortiina uu ku guddoonsiiyey labada sarkaal markii hore sarkaal iyo sarkaal xigeen bay ahayn maanta waa laba sarkaal maxamed wacays allaale iyo maxamed cali barre oo goobtan ku sugan falkii geesinimada lahaa ee ay ka geysteen samata bixintii iyo gurmadkii abaaraha gurmadkii daadkii ku soo jabay degmada Dila taas oo ahayd mas'uuliyad iyo isxilqaan dheeraad ah iyaga oo aanu jirin amar lagu siiyay inay daadka galaan iyo inay dadkaas samata bixiyaan waa go'aan geesinimo leh oo iyagu ay dadkoodii iyo bulshadii ay amnigooda ka shaqeynayeen ay garashadooda keentay arrintaa darteed madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu go'aansaday inuu siiyo abaalgud iyo darajo labadaba inuu isugu daro aad iyo aad baan u hadlayaa baliyay hawsha fiican gulatay hawsha qarana gulatay aad iyo aad baan ku hambalyeeyaa ilaa waxay idinka tisaasiyay leeyahay waan idinku faanana ilaa idinka tisaasiyay